اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كورت قبل دادهين سوا وهم بلينا سي قروح بدن وشرف بدن وقيمة بدن أي دادهين وانا أمهات علنا وانا بهنا هاي مامل كنوع عاصو كلتا وعدالة ودت كان أنقفكو حد قد بيني سبتو تيك توك وحلو برتي inta badan qof walba wuxuu rabo inuu sheego dadkan iska caayo marka horta aadan ugu mahad celinaya aadan leeyahay meeshaad ka sii wad tan kaleetana hadda meeshan waxa barnaamijkan gabadhu u furtay ama topigan looga hadlaya waa hormuud iyo hay-adda nisa waa hay-ad dowladeed oo ah horta salaam amay maqashaan هذه سفعة لغو مغلا هيئة نسا وهيئة دولة أو دولة كسعته مركا ماشان وحا جرتو دولة أرمها دولة صوماليا وحا نقبر بري هيكل كي دولة نمدا ينظام كي يتيرر كي كل سنة أيا نقبر بري مركا نقبر برينا جانتا فورنا للنقضي قف ولا بسيدي ربطي إنا يشاد عدي waxaa la gaaray marka in dawladda ay soo kabsato marba heer taagnaato maanta meesha ay taagan tahay horta waxaan ilaahay uga mahad celinayaa inay meel fiican taagan tahay oo la doodi karo oo la wada hadli karo oo qof walbana la dhihi karo dawladda kugu wacday oo arrinkan kaa rabto oo la horgey karo maxkamad ama la horgey karo nidaam mid kaleeto Soomaaliya waxay la dagaalamaysay nimankan la leeyahay al-shabaab oo ah urur argagixiso oo Soomaalida iyo ummadda dhanba dhibaato ku hayay oo dhiigga dadka shaqeeyay dekada iyo airportkana ka qaadi jiray lacag badan oo xad dhaaf ah dawladdu waxay soo gabagabaysay arrimahaas oo dekada iyo airportka ayay arrinkaasi soo xirtay nimankan waxay gaareen inay shirkadaha iyo dukaamada iyo guryahana ay damcaan inay ka qaadaan arrimihii wasay u socotay markii dambeetana kaamirad ma rakibi kartid ayaa timid kaamiradii la rakibayay problemka laga maray oo ugu dambeysay waa garanaysiin waxaasoo dhan salka waxay ku hayaan amnigay ku hayaan marka waxaa ogaatiin amniga dadka waxaa mas-uul ka ah dawladda ka ah dawladdu waxay u idman tahay oo shaqaale u tahay dadka inay maaragtay ay midayso ay nidaamka dawligana ay ka hirgeliso marka sidaas daraadeed waxaa la rabaa annaka maxay danteena ku jirtaa ma dawladdu inay shaqayso ay hirgeliso dawladnimada iyo nidaamka mase waxay ku jirtaa inaan ku jirno dib u dhaci aan soo marnay iyo wixii xumaayaan soo marnay mid kale hormuud ogsoonaada waxay ka mid tahay shacabkay ka mid tahay hormuud waxay ka mid tahay shirkadaha Soomaaliyeed ka mid tahay hormuud kama awood badna dadka shacabka ah waa xoolo shacabka ay leeyihiin aan ogaano hormuud ayada laftirkeeda war isbariyeel oo arrinkan iska soo bariyeel waxa way hormuud iyo beeka waa isleeyihiin beeka meel dhaweed waxay ka andacoonaysay ay ka doodaysay baalayaasheedii iyo korontadii aan dadka u gelinayay waa la dhibaateeyo baalayaasheedii waa la qarxiyay hadda hormuud waay la socda hormuud waxa walba ganacsiga ku jirtaa waxay leedahay jidadka ayada dhisto oo shirkad buruj la dhahaa jirto waxaasoo dhan Dar es Salaam ayaga maamulo ismaheeda iyo systemkeeda guryihii ay dadka ka iibiyeen hadday cilad ku soo baxda xataa ayaga laga xisaabtama marka waxa ogaatiin shacabka iyo shirkadaha wax u dhaxeeyo waa inay yimaadeen waa inuu jiraa shacabku wuxuu ka baqo sharciga wax walba ka sareeyo marka shakhsi iyo hebelow iyo mahad maanta yimid shaqo qabsaday maanta taariikhu galay barina wuu tagayaa nin kala imaanaya nin walba marka waxa laga rabaa inuu sharciga adkeeyo oo meeshuu shalay ninkan keenay ka sii wado marka nin baa ugu horeeyay oo Fahad Yaasiin la dhaho marka waxaa la rabaa shakhsi waliba meeluu ku fiicnay meeluu keenay meesha uu keenay sharcigaas waa inuu ka sii hagaajiyo oo wax fiican keeno tan kaleeto haddii aad maaragtay shirkadan eedaysaan ama aad eedaysaan maaragtay mahad salaad iyo nisa iyo maamulka hogaaminayo macnaha waxa u socotaan xasan sheekha u socotaan meesha u socotaan aniga aan u arko
xasan sheekh baa u tabaraacaysaan xasan sheekh garbaha inaa ka tiftaanaad rabtaan ousan duuli karin ousan dhaqaaqi karin oo xasan sheekh iyo mahad salaad xasan haddaa aragto waa mahad haddaa aragtana waa xasan marka aniga meesha u socotaan oo noo arko waa meeshaas marka koowaad tan labaada idiin soo hartay mahad salaad laftirkiisa sharciga kama weyna xasanaan ka weynayn mahadaan ka weynayn qof ka weyn ma jirto annagana waxaan rabnaa dowladnimo iyo nidaam aan ku soo hirino ilmaheenna carruurteenna yaa gaaladii faraha u galeen dad badan oo Soomaaliyeed halka ka aragtaan oo gaalo noqday oo mulxid noqday oo waxay u noqdeen waxa waaye dibad jooggaas waaye waxay u aamineen waxa waaye inay gaalada la joogaan wax ka dhaadhacsiiyaan war xageen ku noqonayna xagee salkeenu uu gaaraya marka walaalayaal waxa ogaatiin meesha ay baashu ka bugto waa abnigana meel walba galaya shirkad walibana waxa ogaatiin shirkad walibana maca dhulka ay degantaa dawladda ayaa soo fargali doonto ma aha meesha ay degantahay ayadu meelay lahayd hormud ma jirin 30 sano ka hor 20 sano ka hor ma ayan jirin hormud markay timidna meelay degtay oo anteenooyin rakibatay anteenooyinka xataa problema lagala kulmaa cudurrada kansarka lagala kulmaa dadkii ay ka dhex sursuratay magaalada banaankeeda maaha marka waxa ogaatiin hay-adan beeka la leeyahay gurigii gubto oo korontada ay gubto xataa magdhow ma bixiso sidee rabto qofka ma dacwo korto meel u dacwooto mala ma waxa leedihiin sidaas lagu sii socdo war waxa wax ka daray waaye arrinkan shacabow adinka wax dantiina ah dawladnimada ku jirtaa arrintu waa iskala gudbay maanta meel walba gali doontaa dadkii guriyihii islaameed deganaayo dhulkii dawladda ay lahaydna bariya ka kac la dhihi doonaa maxaa sheegi doontiin bal noo soo sheeg maxaa sheegi doontiin cid waliba oo xaq islaameed qabto cid waliba oo dadka ku xadgudbayso waa inay dawladdu qabataa waa inuu maamulku qabtaa annagu aniga intaasaan qabaa ee fikra meel walibana hormuud way qabsatay dhaqaalihii waddanka ayadaa gacanta ugu jiraan maamulkii ayagu gacanta ugu jira dawladnimada ayaday gacanta ugu jirtaa ayaga laftirkooda dan ugu jirtaa shalay waxay daacish ka sheeganayeen daacish oo buuraha goolis joogo ayaa halkan ay ka sheeganayeen dhahayeen xamar bay nagu maamulayaan ogsoonaada marka mar waliba waxa loo baahan yahay aniga iyo waxyar waa kufinaya walaalow raallo maanta dhan waa ku dhageysanayeen waxyar aan fahanno maamulka iyo nidaamka dawliga ah shalay meeshuu joogay iyo maanta meeshu shalay waxaa jirtay inta qof timaado walaalka hortaada ku disho ay kafeega kula soo fadhiisane ma ka hadli kartid mana juuqna ma dhihi kartid meel aad u dacwootana aysan jirin marka maanta meesha ay joogto waa meel fiican oo talaab laga sii qaadi karee saa u fakara isna marxabaysta walaalayaalow ogasoonaadan dawladnimada nidaamku ku jiraayo tan kaleeto Itoobiya hadda ay la soo dhaqaaqayso oo ciyaarihii gobolada iyo loo carqaladeynayo waxa la diidan yahay istaadi Muqdisho 65,000 oo qof timid maalin walba dad bay dhibaysaa horumarkaaga dad bay dhibaysaa nidaamkaaga iyo sharcigaaga iyo waxa horumarkaa gaaraysa marka meesha aan marayna ka fakara adduunyada la jaan qaadayna waa idin salaamayaan waana u mahad celinaya gabadha barnaamijka meesha